waxay kusoo qortuu yiri mar dhow waxaan ka xoroobayaa warahmatullahi wabarakatuh kulanti waana wanaagsan mar kale iyo video cusub jalmkaad nagala socotaan waa xabaab family anigu waa musin soo dhawaada maalin wanaagsan habeen wanaagsan subax wanaagsan duhur wanaagsan casir wanaagsan kullu shay wanaagsan asxaabtay bas soo dhawaada asxaabtay rajooda soo dhawaada dhammaantiin soo dhawaada dhammaantiin waa jecelahay إن شاء الله مركز إيميل كسر ودعاء قف كسر مسلم أنا حنون صني ولا عارف ما تعمل وصيه تذكر جرنا كويس سبسكرايب كسكريب على لايك شير كومنت تيجا تذكر نولج وجنا لايك تعمل وعاوي كومنت إن شاء الله وأنت بدي تقولنا نقطة هاي سود وهذا وحاول أخص وحنادينا ذلك أستراليا هلا أستراليا فملوا مزمنا دي سود ويا قصة waxay ku dhacday waxa waa reer isqaba soo marka qisada waxay ku dhacday in loo magacaabo Dennis Betula oo ah 20 jir u dhashay dalka Iran wuxuu galay dalka Australia sanadii 2011 Dennis wuxuu ahaa yani qof furan oo markasta jecel inuu dhaxgalay bulshooyinka waliba dhaqamadooda uu qaato soo isla markiiba wax yar kadib markuu imaaday 2 sano kadib waxay isbarteen gabar loo magacaabo Andre Stephen xilligaas isbaranayeen way yareed laakiin mar dambe isguursadeen markay isguursanayeen waxay ahayd dhamaadkii 2018 xilligaas Andre isguursanayeen waxay ahayd 21 jir muddo dheer isqabeen waliba waxay dad isku faraxsan oo had isku ah asigu wuxuu ka shaqeynayay shirkad ka shaqeyso yani meelaha lagu iibiyo hilibka dukaanada hilibka iyo waxaas uu ka shaqeynayay ayadana waxay ahayd gabar ayadana ka shaqeynaysa shaqooyin oo sida dharka fashionka xaysiimaha fashionka ka shaqeynaysay sanadii markay isguursadeen waxa yani dhamaadkii 2018 isguursadeen wax yar kadib waxay dhaleen ilmahoodii ugu horeeyay curad kaasoo ah wiil waxa dhacday markay dhashay intay umusha ku jirtay yani markii bilihii dambe fasaxi oo uurkii ilaa intay umusha ku jirtay in la soo wacwaacayay oo telefoon loo soo diray waliba maadaama dad ay xayeysiiso shirkado fara badan ay soo dalbanayay waxa jiray dad yani niman waxa jiray company la dhahay inaan kula kulanaa rabnaa gaala hadalna in arrimo shaqo asigana xilligaas waxa yani qof haayo telefoonkeeda oo markasta arkayo maadaama ayada tahay qof yani saatay ama markaas xitaa umule ku jirtay sidoo asiga afkiisa ka sheegayo wixii aad dhibsadoo yiri dhowr mar waxaan ku dhahooriyay shaqada waa inaad joojisid because ima anfacdo waa laazim inaad stop gareysid aan dhaho yiri laakiin ayada waxay dhaadeen marka hore ani ay guursanayso waxaan ahay yani qof shaqeynayo ma ahan qof meel fadhiyo ilaa iyo 16 jirkeyga ilaa 15 jirkeyga waxaan qof shaqeeya waliba ku jira arrimaha fashionka ah soo marka macquul ma noqonayso adigoo soo galooti ah wadankii yimid in aniga imaamusho because waalidkeygii aan hore uga diiday inay maamulaan saas daraadeed marka waa khasab inaan aniga ismaamulo saasay tiri yani saasaan ku dhahay saas ugu dhihi jirto yiri asiga Mr Dennis wuxuu yiri waxaan go'aansaday yiri inaan ani ayada kala tagno because waan aqbal waayo xaaskeyga oo markasta baxaysa oo la soo kulmaysa rag waliba hoteelo waaweyn tagaysa oo way anficayso way aqbal waaye sida la sheegay Dennis yani ninka markii hore Iran sidaan ognahay waxay badan tahay shiico badankooda majority ah yani shiico waaye soo laakiin asin markuu yimid waxay jeclaysatay waxay dhowr mar waxay dhahdo waxaan jeclahay rag kale tattoo yani calaamadaha jirkooda ku sawiray waxyaabaha aan jeclahay saas way kama ay jirto li ajli ayada aan ku qanacay aan jirkeyga waxaan ku sawiro yani calaamadan ku sameeyo si ayada u qaracdo hab ugu noqoto ayadoo saas tahay ani aan qancinteeda ka shaqeeyo jirkeyga waxyaabo ugu soo sawiray si aysan meel kale u fiirinin waxaan dareemay iga sii jeedo waliba hoteelo ay aadayso ayadoo dhalo wax yar oo mulku jirto wuu fasaxay shaqada ku jirto inay iska baxayso waxay kala sameysay yiri markay baxdo 2 saac 3 saac ay maqnaanayso markay baxdo wax yar kadib ay telefoonkeeda dansanaysa location aan ugu tixraacaan ugu tagay telefoonkeeda dansanaysa saas daraadda marka waxay noqoto yani waxaan aqbal waa because ma jiro nin jecel maanta inay naagtis inta baxdo telefoonka locationka dansato ama rag kale la soo kulanto ma jiro yani ninka si kasta uu ku nacab yahay hadana markay timaado yani rag markay timaado
ma jiro nin raba xaaskiis inay rag kale la kulanto hadday shaqo kala dhexeen xitaa yaan rag badanaa ma jeclo si kastay shaqo kala dhexsan ma jeclo inaad rag kale la kulantid isla markiiba waxaan qaatay dhowr maraan kala hadlay waxaa dhahu yiri hoteeladan aad aadaysid jooji qofka markuu kaa leeyahay yani uu rabo inuu kaala hadlo arrimo shaqo taleefanka ku wada hadli because hadda horumar baa la gaaray taleefanka ku wada hadli kartiin markasta taleefankaad online ka tahay soo marka maxaa diidaya inaad video call xitaa ugu yaraataa video call aad ku wada hadashiin oo taleefon aad ka wada hadashiin anigaa shaqaa jiraa waad soo wacaysaa ilmihii yaraa aad rabtaa inaad iiga tagtid wixii dhan isku wada cakiran saas daraadeed marka ama yacni dadka aad u shaqaynaysid aad u go-aysaa ama anigaad ii go-aysaa waxay igu dhahday oo yiri intaasoo dhan yacni waxa sheegaya warkaas dhan waa Deniz Baytullah oo Iraaniga ah waxay igu dhahday oo yiri soo dhawow horan waan kuugu sheegay iminkan kuugu celinaya ma ka tanaasulayo yacni shaqadan iyo dadkan aan la kulmayo adigun baan kaa tanaasuli karaa aniga wuxuu wixii niyad ku haayo oo walwalsan oo yacni xaaladda igu xun tahay waxaa dhacday yiri gabar ayada ay saaxiibo yihiin weliba yacni kasoo jeeda ayadana wadamadan Aasiya oo weliba Bangladesh u dhalatay waxay ugu dhahday yiri yani ay ahaayeen friend yani saaxiib ugu dhow ay ahaayeen waxay ugu dhahday yiri gabadhan markasta yani waxa waaye waxay ka talisaa sida adiga oo kaaga taqalusi lahayd ama xitaa ugu yaraan sharciga rabtaa sida sharciga laga kansal lahaa dadkan ay la kulmaysana waa dad yani baawar leh oo awoodo inay kiis uunku geliyaan qaarkoodna waxay ka ganacsadaan drugska si marka adiga lacaga fara badan inta lagugu sheegay aad gashid booliska ku xiraan ama lagu musaafuriyo oo lagu celiyo dalkaaga Iran ama yani xabsidaa lagu xukumo saasay ka shaqaynaysaa tiri Andrea Stephen yani saaxiibteeda warka sheegayso waa iska taqaanaa shaydaan jiro ninkii Baytullah guriga markuu yimid waxyaabo fara badan oo sabartay wuxuu siri yani sidee ku dhacaysaa in naagtan adiga ay ku xirto weliba rabto yani inay kiisas fara badan ku geliso lagu fakeray haddana ayadii gabadhi because marmarka qaar waxaa jiro waxyaabo kulmaayo Soomaali waxay dhahdaa warka iyo weerta maxaa kulmay saas aan malaynaa inay tahay waxaa jiro waxyaabo kulmaayo ayadii Facebook waxay kusoo qortay yani hadda Facebook wuxuu noqday aalad yani dadka dhan wada galaan oo wax kasta lagu qoro laba qof oo isdirta laba qof oo isfurto laba qof oo isjecel wax kasta lagu soo bandhigay noqotay social media Facebook waxay kusoo qortay yiri mar dhow waxaan ka xoroobayaa mid kamid ah xabsiyada dunida ay kusoo qortay Facebook yani Facebook accountkeeda kusoo qortay yiri mar dhow yani waxaan ka xoroobayaa mid kamid ah xabsiyada dunida weliba aan jeclaa bari hore inaan ka xoroobo laakiin xukunkeygii uu dib u dhacay laakiin haddaan ka xoroobayaa bay kusoo qortay yiri isla markiiba waa weydiiyey waxaan ku yiri waa xay xabsiga aad ka xoroobaysid iyo xabsiga aad ka sheekeynaysid waxay ugu dhahday yiri xabsiga aan ka xoroobayo waa xabsigaaga iyo noloshaada because noloshaada waxay noqotay nolol yani ciriiri ah markasta waxaad isku daydaa inaad aniga iga soo horjeesatid waxyaabo fara badan isku daydaa soo marka waxaan jeclahay inaan ka xoroobo xabsigaaga iyo noloshaada iyo xorriyad la-aantaada aan doonaya inaan ka xoroobo isla markiiba Deniz wuxuu sheegay inuu go-aan qaatay weliba xanaaqay la isugu gacan qaaday meeshina wuxuu ku dilay xaaskiisi and my baby and my wife. You just what, sorry? Stephen iyo ilmihiisa yar ay 11 bilood jir wiilkiisa yar ay 11 bilood jirka ahaa meesha ku dilay inta ay soo saaray codkiisa isla markii booliska wacay markii uu arkay inay dhintay labadoodaba because 6 jeer uu mid dilay xaaskiisa ilmihi yaraana ayada korka yani way haysay kor u haysay markuu midida gali ilmihi dhulku ku dhacay saasoo ku dhintay laakiin ilmo wax kale lagu dhufan dhulkaas uu ku dhaco ku dhintay isla markii booliska wacay wuxuu ku yiri waxaan dilay xaaskayga waxaan dilay ilmahayga muusan fakarin guriga loogu tagay boolisku wacay guriga loogu tagay guriga lagu soo qabtay wax kasta markii yani gadaal loo baaray oo baaritaan lagu sameeyay waxa kaliya la ogaaday waxay tahay gabadha Facebookeeda yani ma malayn kartin qofka uu ku soo qoray Facebook hadalkaas gabadha Facebookeeda waxa ku soo qoray hadalkaas yani saaxiibadeed oo ahaay saaxiibadeed gacanteeda ku qortay gabadhi ka soo jeeday Asia waxay ku qortay xabsiga dunida mid kamid xabsida ku xirooba gabadhaas ku qortay gabadhan yani ma isan ogeyn sheekada shaxda saaxiibteeda u degtay
dadka ee la kulmi jirtay oo maxaytood yacni gabadha la kulmi jirtay ee rabtay markasta ay wada kulmi jireen wuxuu ahay gabadhan aysiyaanka ninay usoo dirtay weliba ay rabtay ninkan in lagaga maseersiiyo wax ganacsi la dhahay ay ka wada hadli jireen ma jirto keliya waxaa la rabay qof hotel aada iska dhigi jirtay si yacni ninkan hadduu ku jecel yahay inuu maseersaan u aragna waa in markasta waa lagu soo wacan nina la iska dhiga qof arrimo kaala hadla la iska dhiga soo marka iska dhig qof yacni rag lasoo kulmaayo saas daraad min gurinka kasoo baxayna taleefonka dirsan ninkan ilaa heer intee la uu ku jecel ninkan soo galootiga ah aan dhihi jiray tiri saaxiibtay because waxaan rabay tiri yacni ninkan anigaan jeclaay saas marka ma aqbalayn in gabadha ay sii noolaan waxaan rabay in ugu yaraan ayada uu divorce gareeyo after ani asigan aan xiriir wada yeelano saasna aan ku aqal galno reer dhani waxay ku durumaysa yani wax easy oo fudud weliba yani naf dhan ku goysa iyo ilmo yar ee dunida kusbaay laha yacni rajo fara badan because ilmaha markuu dhasho waxyaabo fara badan oo maxaytood uu carfaayo duni qurux badan uu kusoo biira waxyaabo fara badan mustaqballo future dheer u leesama wax yar yani waxay ku burburisay ninka rabitaanka ee rabto saaxiib faa'iido male marka la dhaho markaan oo kale soo marka saasa waxaa lagu xukumay Dennis iyo gabadhii ka dambeysay shirqoolka because labadan qof oo isqabta waxaa ka dhex shaqaysay gabadhaas kasoo jeeda dalalkan Aasiya kasoo jeeda ka shaqaysay in labadan qof ay isdiraraan weliba waxay rabtaa ayada soo sheegtay ma jecleen bay tiri yacni in la dilo gabadha ay dhimato laakiin keliya waxa keliya aan rabo waxay tahay halka maada aan rabo waxay tahay in ugu yaraan labadooda ay iska divorce gareeyaan si aniga iyo asiga yacni u noqono hal qof aan iskugu noqono saasa marka waxaa lagu xukumay Dennis xabsideen loogu xukumay gabadhina waxaa lagu xukumay 12 sano xabsi because qofka waxaan dhan iska dawareega soo abaabusha maskaxda ka dambaysa ayada waayo weliba yani waxaan dhan ayadu way khiratay markii ninkii la qabtay weliba gabadhin ay dhimata la xaqiijiyay ayada booliska hortooda wax kasta ka khiratay sheegtay in ayada ka dambaysay wiilkan iyo gabadhan ay tahay dadka isku diray in ayada tahay waxyaabo fara badan wiilkaana markuu ayada يعني دي جرتي ناقتان ku barabto niman ay la kulmaysaa aday rabtaa inay baxar ku geliso saas si labadoo inta u qarashkeen isku divorce gareeyaan ayada iyo ninkan ay noqdaan yani dad is jecel oo xiriirka dhexe oo isguursada saasaan rabay tiri yani aniga laakiin ma rabin inay saaxiibada ay dhimato saasa marka lagu xukumay Dennis gabadhina lagu xukumay xabsi 12 sano Dennisna xabsi daan because laba nafoo dileen marka qasintaas ay ku dhantahay waan dareen kartiin saaxiibada qaarkood waxa sunno way ka dareeyeen marka insha Allah kula Ilaahay markaasna hana badbaadiyo dhamaantiin ma santiin dhamaantiin wada jecelahay insha Allah tan subscribe ka like share comment ka naga ilooban